Engineer Maxamed Ibrahim Xasan masaajidka project managementgeeda iyo dhismihii masaajidkan ayaan mas'uul ka ahaa. Masaajidka waxaa la bilaabay 2017 ayaa la bilaabay masaajidka asaaskiisa u horeeyay. Masaajidka habka uu u dhisan yahay waa hab architect Cuthmaani ah oo sida ay u dhisan yihiin masaajidada Turkida ayuu u dhisan yahay. Gudahiisa iyo dibaddiisana waa marble dhagax la yiraahdo aad qaali u ah. Gudaha iyo dibaddaba wuu samaysan yahay, wuxuuna wataa shakli islaami ah oo thuraathi ah Cusmaaniye ah oo leh qubooyin isdul saaran oo 3 qubo ka kooban. Masaajidka wuxuu leeyahay murfaqaad badan oo asaga la socda. Waxaa ka mid ah saaxada weyn ee lagu tukado bannaanka ah oo masaajidka uu leeyahay. Masaajidka wuxuu kaloo leeyahay parking underground oo dhulka baabuurta hoostiisa la dhigto iyo qayb yar oo dusha ah oo qaadaysa ilaa 150 gaari qaadaysa ayuu leeyahay. Masaajidka wuxuu kaloo leeyahay guriga imaamka oo ka kooban 4 qol iyo fadhi, iyo guriga muadinka oo ka kooban 3 qol iyo fadhi, iyo xafiis maamulka masaajidka uu leeyahay oo ka kooban 3 qol. Intaas waxaa dheer inuu leeyahay supermarket oo dadka jimcaha ku soo tukada iyo dadka xaafadda degan ay ka adeegan karaan, iyo restaurant wax laga cuno inuu leeyahay, iyo meel cafeteria ah. Waxaa kaloo intaas dheer inuu leeyahay apartments masaajidka loo waqfay oo lacagta ka soo baxda masaajidka lagu maamuli doono ama howlihiisa nadaafadda ama wixiisa lagu bixin doono, iyo weyse bannaanka ah ayuu leeyahay oo qofkaanan musqulaha gelaynin oo waxay yidhaahdaan Turkida shardebaan, weyse bannaanka ku taalo oo waxaana la socota 2 musqul oo loogu talagalay dadka disableka ee wheelchairka lagu wado oo dibadda ku yaalo, maadaama musqulaheeni ay underground ku jiraan. Masaajidka waxaa loogu talagalay in ay ku tukadaan gudihiisa 2550 oo rag iyo dumar ah. Waxaa kaloo loogu talagalay inay ku tukadaan 2500 saaxada bannaanka inay ku tukadaan ayaa loogu talagalay. Marka guud ahaan 5500 ayaa ku tukan karta masaajidka, gudaha iyo bannaankaba ayaa ku tukan karta. Guud ahaan haddaan soo koobo, masaajidka qarashka ku baxay ilaa 12 milyan oo dollar ayaa ku baxday. Waxaana qarashka aad ugu badnaa oo ku baxay waxaa waye marbalka gudaha iyo dibadda iyo bannaanka yaala. Masaajidka loo dhisay sheekha Ilaahay khayr ha siiyo, wax looga dayda waaye. Wuxuu waqf aga dhigay aabihii Allah yarxam Ali Jumcaale ayuu u waqfay, waana yani khudwa xasana ee looga dayan karo in qofka walba waalidkiisii uu ka fikiro waxa loo tabaruco. Waalidka wax ugu wanaagsanna masaajid iyo ceel iyo ka mid ah. Marka Sheekh Axmed Ilaahay khayr ha siiyo in looga daydo u baahan yahay in